السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada waa maalin kale oo hawadu fiican tahay oo qorax fiican jirto. shalay xoogaa humaag iyo roob aa jira iyo qabow. جمعة مبارك، جمعة wanaagsan، جمعة جار suuban, qof bas oo u yaqaano kulligeen waa idin salaamayaa. walaashina amana muusoo heliya oo haddana idin caadi warramaysa. horta waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo siday aad uga falceliseen muuqaalkii aan soo duubay 2 maalmood ka hor, maalin ka hor inay heeda umalaynaa mise 2 maalmood ka hor maqaalkii aan soo duubay oo aan kaga hadlayo oo aan siinayay moral support ama taageero dhinaca niyadda ah gabadhii walaasheen ahayd tusma safiya tusma. waxaan dhahay muuqaalkaas waa dhahay hadda haddii laygu yiraa kusoo celino sidiisa laa u dhahi lahay aniga maaha inaan madax adagahay, laakiin ila maaha wax qaldan inaan ku hadlay. hadalkuna sidiisaba kolba dow la marsiiyuu leeyahay hadalku. dow baa la marsiiyaa hadalka, wado la marsiiyuu leeyahay hadalka, iska hadal maaha. horay aad iyo aada u fara badan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed oo maalin walba meel ku dhibto. rag dhibtoonaa jiro, laakiin raggiyaa u jooga. dabeecadaha ay ragguna bareenna waxaa waaye inay isu hiiliyaan. waxa aan isu hiilinin waa gabdhaha Soomaaliyeed isuma hiiliyaan. maalinba quraan dharu ayaa loo akhriyaa, markaasay rumaystaan. maalinna waxaa la yidhaahdaa adigu qofka ku reer ma tihid, markaasay kasoo horjeesataa gabadha walaasheed oo kale. maalin kalena waxaa la yidhaahdaa qofka ay adigu isku mid ma tihin, inta la yaro ammaano oo la yidhaahdo adigu waad ka sharaf badan tahay gabadha ayay rumaysataa. maalinba sibaa loola dhaqmaa oo lagu kala dilaa. dad caqli labaatiin xoolaha iyo dadka maxay ku kala duwan yihiin ma garanaysaa? ilaah baa wada uumay, koonka ilaah baa uumay, samada iyo arlada dhulka ilaah baa uumay. maxay xoolaha ay ku kala duwan yihiin ma taqaanaan? iyo dadka maxay ku kala duwan yihiin aqliga? neefka xoolaha ah mid kaloo xerada kula jiro hadduu herti suro oo uu docda ka duleeliyo, war waa kii docda kaa duleeliye iska daayoo ha u laaban ma garto, haddana aadaa hoostuu ka galaa, mar kalaa la soo hertiyaa. dadka laakiin aqliba ilaahay siiyey nolosha ku maareeyaano waxaa la doonayaa inay xoolaha ka dhaqan duwanaadaan. xoolaha sidee uga dhaqan duwanaanaysaa? waxaa uga dhaqan duwanaanaysaa dee sidii xoolihii oo kale meeshii lagaa qaniinay ama walaashaa laga qaniinay adiguna ha ku ordi, iskaga joog. abuuska waa badan yahay ama gaboodfalka waa badan yahay, tiradaasoo ka bata waa tiro ma leh. wuu xisaab beelay, ha xisaab beele. bulshada dhexdeeda wuxuu u galay sida isnadaamis buu ugu fiday. isnadaamis waxaa jira cudur oo cadho ah oo cadho xoolahay gashaa, dadka ma gasho, laakiin cudur waxaa jira oo maqaarka geli jiray. markaan aniga ciyaalka ahaa waa xasuustaa istandartiyo ahay galaaska 2 oo beledka dhan xamara oo dhan uu ku dhacay, kolba waddanka kalena ku dhacay war umahaaye. bas iskoolka aan ka soo qaadna, marka iskoolka laga soo qaadaa ilaa moodad isku mid ma aha, guryi aan ka ciyaalka ka imaanayn isku mid maaha. bas isnadaamisaa la dhihi jira. waxaa laga wadaa qofku maanta oo dhan waa u nusxoqayaa, markaasuu intuu miir beelo oo is ilaawo. ba dadka qaarkood oo waaweyn meelaha hoose oo cawrada ah iyo meelaha dharku badana aan ku habboonayn in meel dadka wada arkay in la xoqo bay xoqi jireen. annaga iskoolkaan ka soo qaadna waxaa xasuustaa hooyo iyo aabbo inay badda liidana geeyaan. liidadan hadda dadka waaweyn ay ku dabaalaan, annagaana ko ilmahaan soo mar. isnadaamiskaas
oon iskoolka ka soo qaadnay takhtarkana waa nala geeyey bamaatana loo soo qoray waa xasuustaa hadda waxaa sida isnidaamiska noqday dhaqan xumadii waa sida isnidaamis maxay ahayd toona dadka abuuska gaboodfalladii dadka qofka kale oo ka xoog badan nusaa waa abuusaa hadalaa lagugu abuusaa eegmaa lagugu abuusaa قرصي لجوجو أبيوسا والله يسا دمر بات هوا لجو ليه دينا لجوجو أبيوسا وحكست لجوجو أبيوسا أضو مسلمة أو قالسة هذا أن الدين تميلان وقص عذاب آدم لهن قال نمل لجو نيسها مرة كقارك كان كون نيساي صلاة بمتو كذا هذا واحد لقى يابا إن عشان الصلاة وقت جود كتو بس spiritual abuse قفكم مركو دين هنكو أبارو spiritual abuse واي اوكي maxaa kala physical abuse ka kan ugu daran waa qofka oo ku gacan qaada ka ugu horeeyo laakiin waxa ka dhib badan qofka oo niyad ahaan kuugu gabood fala qofka oo maskax ahaan kuugu gabood fala maskaxda ka gumeysta maskaxda ka gabood fala maskaxda ka abuse qofka oo moral ahaan ku abuse niyadda ka abuse كيسس بدنا سومالida ka dhaxay war xataa tusaalaan soo qaadayna hadaan dhano farahay ka bateen ma soo qaadan karno tusaale marka ragga isu haysta in dumarku ay ku jiraan dagaal ayaga ka dhana kuma jiraan dumarka difaac bay ku jiraan waxayna iska difaacayaan qaybta toqomada ha idinka tirsan waana waajibde waa waajib oo xataa waa waajib islaamiya oo waajibaad waxa dumarka aad arkaysaan ee dagaalamaya ku jiraan wixii ka badbadisa waa goonay laakiin waa jihaad because maanta hada saakay laba gabdhood oo ooyaysa subaxii waaga markuu bariyo salaada dukada aan ku asbax walla igu asbixi anigu mar raadsane dada ii soo dar labada gabdhood waa Soomaali mid jarmalka ilma looga qaatay iska ooyaysa midna iyada odageeday taas in kasto arinteedu yara siloon tahay ayay qof baa ka soo duuba camera markaas wixii aad loo hubinaa ninka kamerada dhac lagu soo siiyay gabadhi waxay leedahay ninkii aniga cunugaan isu dhalna gabaraa isu dhalna waa iga sirsirta muga hore adigu waxay ku heshiiyeen hunguri sida cad laakiin ugu dambeyntii alxaasil waa ooyowaysa she's not happy qof kasta ananka iskalama duuba karna haddaan aragno annaga kuweena qaldan xataa waanu isceshanaynaaye ragow idinku ma isceshanaysaan kuwiina qaldan ma naga ceshanaysaan qadiyaan baanu ka taaganahay dumarkii baa qadiyaan ka taagan marka dakaleeto gabadhii hadashaaba inay iyadu dhib ku jirto maaha dhib kuma jiro aniga ana markaa hadlaayo dhib mug horaan ka soo barmooso ka soo bax waxa uu hadlaa gabdhaha kale oo sideedoo kale xilligii hore oon dhibka ku jiro kale hadda maraaya u hadlaa kuwaas ayaa wax u sheegaa kuwaas ayaan waanina kuwaas ayaan leeyahay dhexda xirta waad ka bixi doontaan laakiin dhaqan xumadan wax walba gabadha dul saaran maxay tahay gabaraha heesta iyadoo waa dambi ninka la heesta dambi ma gabaraha xagga martay iyadoo waa dambi gurigeeda may joogto ninkii la maraayay dambi maaha biilna ma siiyo ninkeeda biil ma siiyo arro gabartan biil xaa u siin gurigeeda iska joogtay qof dhaxaya ma arkaysid dumarku waxay ku rooyeen inay guriga ku jiraan hayayaan guriga ugu jirayna yaan cunayna darbiyada guriga maanta jabsayna masruufkii aawa marashadii aawa quruxdii aawa catarka ninka mugaan sarrurta u korayna aan marsalahayn aawa kriimkii aan korka kaga ilaali lahayn busaaradda iyo cambaarta aawa isugana naag qurxano way rabaahe hada hadoo fil daraado waa baxa hadana saddex kale keenahay muga ninka raali galiya aadna tiraan xataa si loo raali galiba ma u yaala beesa u raali galayna marka miyaan la kala garbixaynin oo ummad isku afaho isku dhaqanaho isku diinahaano naaya oo Soomaali la isla yiraahe ya miyaan la kala garbixaynin oo miyaanay gartay leen wallo islaamiye miyaanan kala garbixin ya lawa la kala gar qaataa banaanka hadaad soo dhooftood ilmihi baga ku soo qaadatay qaar kalena adoo dhabarka ku sita timidood inta ku dhashay oo calooshaadi banaanka tibe waa lagaaga dhaqaaqay kii kaaga dhaqaaqay waa baxa masjidku ku dukaa imaamka wuxuu dhahaa imaam ha naagti xumayd sida iyo sidan bay samaysay imaamka wuxuu dhahaa dayuus baa tahay shaqa ka qaba
imaamka dhihi maa gabadha xaggee ku nooshahay guddi bay leeyihiin masaajidada qurbo horta xaad qabatiin guddida masaajidada qurbaha aan rabaa inaan weydiyo horta xaad qabatiin maxaa qabataan haddii problem dhaco oo nimanka salaada idinka agtiina ku dukaaya oo masaajidka ku dukaaya xaasaskooda idinkaga soo dacwoodaan idinku maxaad qabataan idinku miyaana waajib islaami ah miyaanu idin saarayno miyaadan garanaynin diinta qaala allahu tacaala iyo qaala allahu rasuulu miyaadan garanaynin miyaynan jirin guddi abaabulan oo gabadhaas laga soo sheegtay bal horta hoos u eega ballan la dhigta waca guriga ku booqda arka horta ninkan wuxuu sheegaa markaad ninka leedihiin dayuusata ya masaajidku waa بيت المسلمين واي لكن أنا حتونن إجرجارين حبتوك ما بهنا صلاة أنا صلي واقبة وأنا كنت كان ناك نواها يعني قل كذا جيف كا يغفر مركا يدك هرت محاق قبتان مساجد الجده إسكبت ده بورو ما هي بقى لكن كوي ننتي بدأ تشوجو محاق قبتان ولا سويتي إذا دتك علماء أتهم بادريدو كون بوضع مدو إيو كوا عد hees ba ha ku wacdiyaan wacdayaan ba ha u haysaanee dadkooda axada mugay is arkaane idinku xaad qabataan maxaa noo qabataan annaga gabdho muslimiin ahaan nahay walaalihiinaan nahay diinta islaamka isla haysanaa allana naga ma xigtaan maxaa noo qabataan naga garbaxa maxaa noo qabataan meeqa nin baan ogahay aniga oo inta gabdhahoodii gardarro ku furay eedab darro ku furay masaajidka ka dhex istaaga sheeqaa aniga xaaskayga nin bay guriga ku haystaa hadda nin maaheed waa walaalkeed oo soo booqday oo leeyahay ninay haysataa gabadhii buu macsi ku sheegayaa anay macsiyaysato ku sheegayaa gabadhi masaajidku ka istaagay jimcii mugla dukada kadib waa fakt jira waa beledkaanay ka dhacda aniga degana sheekhu wuxuu yiri naagtaasa dayuus waa adiguna dayuus baad noqonaysaa iyaduna waa macsilay fur mugaas oo sheekha iskaga dhigaayo inuuna xabad soo furi waaba furaba gabadha hayoo yiri lama bariyo meelaha iska daba shiiro liqooma sida ratagad macsar shiidaaya hadhow gabartu noqdo wuxuu rajactu yaan ire habarta rajactigeeday tir rajactaga orada madaxa saaray tir xaqaha awlaadaha waaba la caayay banaanka masjidka mugil loo soo baxana halii kale kula jiro gudaha subhanallah la ilaha illa allah ilaahay oo naastur naagaha qurbaha jooga waa naaga waashay naagaha isla xamaayaan jidkay taagan yihiin asal lama iyo afar saddex usuran yihiin jidkay taagan yihiin mari ma kartid masaajid Soomaaliyeed hortiisa ma mari kartid nimankiya hada salaada mugay soo dukadaan ay masjidkay banaanka la taagan yihiin xant siyaasadda isku xamaayaan hadda salaadii ay soo dukadeen weesadiyaa ka qoyan wajigooda waa nuura bannaankay u soo baxeen qamiisyo cadcaday wataan iyo iskaarbooyin waaweyn qaabkaasay u labistaan badankooda haddana xanay bannaanka u taagan yihiin marna waxay xamaayaan madaxweynaha waddanka ay ka soo qaxeen boris johnson wuxuu sheegay war uma haayaan ra-iisul wasaaraha waddankan ka taliya war uma haayaan wuxuu sheegay hala qaxo oo dadka madmadooba waddanka ha ka baxaan boqorada ingiriiska haday xalad tiri war uma haayaan salaada subax mugay soo dukadaan aday ku xamaayaan naagahiyay xamaayaan naagahiyay nacladayaan naagahiyay astaghfirullah leeyahay naagahiyay taqullahu leeyahay beledkii oo ay ka soo tageen iyo waddankii iyo siyaasadii iyo madaxdii maaragtay kulli ha xumaata ama ha samaatee halgamaysa ee maamulka haysa oo wax alla waxay ku kordhayaan iyaga aanay jirin xanay ula taagan yihiin qabyaladay ula taagan yihiin khalaas waa dhabaatay masaajidka ka soo baxda soo dukada masaajidka hortiisa qabyaalad la taagan yahay inuu naagtiisa gogasho ka shaqeeyo what is the point maxay tahay marka ixtiraamka aad idinku dumarka ka shaqaysateen maxay tahay wariya gaalada idin dhaanta because ugu yaraan allana ma yaqaanaan rasuulna ma yaqaanaan oo abeeniya laakiin buuga iyo ku qorteen ay yaqaanaan buuga iyo ku qorteen iyo waxay ku qorteen ilaalayaan wallahi iyaga idin dhaama هيا so what محاتين وحير هذا المه كاكران أو هرت أنت المه أي هرت أريرت وأبيوسنتين أديك المحبة هذا أديك أي المه أنا مرّلين مالين تو أديك كفر المه أنا فرّي هالشيء النصي ما
qolada ilmaha haddaad ku dacweyso shaqada oo muggaas hayo ka ruqsaysa asoo ceer dalba asoo leey waana baayo madaxa gadaashiisana baraa iga taalo bir weyn abootadaya igu soo dhufato cusubeeyo yaa oo maba shaqay karaba wuxuu u ruqsaysaa ninkaasi waa ilmahan waxa siinay oo yana gaaladii aad la joogtay ayna kaaga qaadan anigana wuxuu leeyahay xagga haddaan maro gabadha waxay ku fiicantahay inay gurigeeda joogto gurigeeda ma joogto war waxaan maanaa dhalay waxaan ma garacyo anigu gurigeeda kala imida ninaa iga dhalay ninkii aaba ma biisho guriga waa joogaay marka garteenna waa la qaadaa haddii la dhaho rag iyo dumar faraxay ka badata una malayn maayo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waa saddexda magaca ilaahay oo salaad baan soo tukaday duhur oo casir baa ii dhowrano casirka ku sugaya inaanan hal kalaam oo beena ku daraynin garteenna cid qaadi kartaa ma jirto alla mooye iyo qayaama isla sugayna dadaa u maleeya qayaamaha inuu dheeryahay qayaamahaaga qof walba wuxuu bilaabaa naftu mugay kaa baxda qarjaf markaad tiraha qayaamahaaga adigu mahaasoo ka bilowda adiga maxaa kaa galay malyankaan dada oo weli nool malyankaan dada oo weli nool adigoo laguma saarin qayaamaha aad moodaan inuu dheer yahay xisaabta inay dheer tahay aad moodaan markaa adiga qarjaf tirahay ku bilaabato adiga qayaamahaaga mugaasoo bilowda markaasa intii haddana fadeexa noogu dareen laba gabar iyo wiil hadday iska macsiyaysato ninku waa nin rag dhalay doofaarta xuntaa waad ku durdurisa wallaahi waa dubaysay gabartaa aa maxkamad saara iyadoo naartay galaysaa kaymadowda kala jiro gabar iyo wiil hadday iskhilaafaan naagtaa idabtara waa kibirta gaaladay ku kibirta nin iyo xaaskii hadduu ninku ilmaha ka tago wallaahi bilaahi naagahan gaalada maaragta la joogo wallaahi bilaahi waxa waaye maxay ahayd toonay waa kibireen waddankan uu soo gubay oo kaga soo qaxda nin kale loo gubay daade naaga shaneeya shan qowraale xantu waa isla xamaayaan social media la soo galaa nin raadaa gabdhaha ceebtada naagaha gabdhaha ceebahooda faaqfaaqiya iyo tusbaxyada soo qaata iska dhiga wadaadada taqallahu heblaaya waa ceebowda waa macsiyaysatay alla u toobadkeen meelaha ka dhahaay ayaga waa u dambayhaya ayaga waxa waaye cajaladan kusoo xira ii kaadi kuwaas inay sabiilo ku talba ilaaway ayaga waa ii dambayhayaana ii kaadi iyaga waa wax kala waay ama maanta cajalada kusoo xiray ama maalin kalan kaligood ka hadli xagga iyo dhig ayaga okay ilaahay iyo diintiisma wax la isku cabsiyaa ilaahay iyo diintiisu horta ma wax la isku cabsiyaa aakhirada iyo cadaabaha ilaahay ee quraankiisa uu ku kala sheegay intay yihiin oo qaarna qabow dadka lagu cadaabo qaarna kuleel lagu cadaabo ma dumarka loo shiday ilaahay cadaabahaas dumarka ma uu istaaray jannooyinka ma waxa la yiraahdaa ragga un baa galaya saad ku ogaatay adoo xaaskaaga dayacday ama mid xaaskiisii dayaca u heeliyay adoo been iyo barbaganda ku nool adoo 20 jir ah ee uus buuran ee meelahaas marmaraya in gaalo maxay ahayd toonay dukaamanka qamriga ku gadaan laysansiga ay ka qaadaan canshuuraha ay ka qaadaan dumarka jirkooda gato canshuuraha ay ka qaadaan nimanka gadaal iska mara canshuuraha ay ka qaadaan waxaasoo la isku daray iyo dadka kale xalaasha u shaqaysanaya markii la isku daro canshuurahooda ilmahaaga ku biilaya waxaad ka sheegaysaa xayta dayuus la kordhabay oo la hoos dhabay oo la goday adaaba ahayd waay u ogolaatay in gaal oo Allah iyo rasuul ka furto oo futada xaarka aan ka dhaqin inuu xaaskaaga iyo ilmahaaga biilo maxaa u ogolaatay wariya oo haddaan hadlase maxaad iila jeceshahay inaad i aamusiso maba aamusi kartid laakiin waay iila jeceshahay inaad i aamusiso tii hadasha luuqa loogu jiraa maalin dhaweeto anigu weliba qofkaas mar walbaba ama media ku jirto waxa ma ahay haddana inta ku jirto inboxkayga waad yaabaysaa oo abuse hadii abuse oo ku darsataa aniga dhibna mug horaan ka xiroobay gaaladaad sheegaysana waa la noolaa nabadaana kula noolahay qamrina weligay ma cabin
balwadna weligay ma yeelane waxaad anigu igu abusayso xeeyihiin because waa hadashay dee hadalka ilaahay baa afka isiiyo haddaanba wax xaqa ku hadlaayo waa hadlayaa allana jannadaad adigu ku rabto adoo ilmahaaga dayacay ee gabar ceebaheeda kaamara ka daba qaata jannadaad rabto mahaad ka gasho mehe anagana meexa kalan ka soo galaa waaba hubaaba taydaaba la hubaaba ina aniga galaya jannada waaba la hubaaba maxaa yeela adiga waa taarika salaadna waa tahay ibliisna waa tahay oo allah iyo rasuulkiisa ka furtaa tahay caruurtaadana waa dayacday mana aadan korin soomada garan gabar alla iyo gabar hadasha tii xijaaban iyo taan xijaabnayna waad abiyustay kuumana kala soorna saas la ajligeed yaa ayaad adigu naarta galaysa aniguna jannada galaya maxaa yeela markaan 5 caruura koriyo adoo nool 7 caruura koriyo adoo nool ku dul xanuunsado haddana aan baro korin kaliya lama rabo ay calool u buuxisa dadka sida ay ula dhaqmi lahaayeen si wanaagsan inay dadka ula dhaqmaan berrina aan ka soo saaray raggooda iyo gabdhahoodaba aan anigu dhala ka soo saaray dad berrito guryahooda dhaqda oo wiilku marka uu gabar guursado gabadhiisa baari u noqda aan ka soo saaray salaadana aan baray quraankiina intaan awooda aan ka baray guri muslimnimo ay ka jirtana aan ku soo barbaarshay anaaba jannadayda allah waaba inaan kabaha laygaga siibeen adigana naarta kastuumada lagaaga siibi maayo hadday kaaga macdaha naarta aday kastuumadaada ee kabahaaga adoo sudabtaad la galay anigana jannadan galaa sababtu waxay tahay qalad muuqda oo maanta alla looga durkaba ma gelinba aniga حلالات يقول صيحة الماد حلال إيجا دشة واحد تكتب مقايدها وإيجا شاكيسة أنا قد دمر كبران برادة تريه أروسيدا كاغا ما شاكي you see do you see what I'm talking about yeah المهاجي ضيعتي أنا المهاجي ما ضيعين ولا جوجا وكدل حنون صدي حنونك وكريستي xanuunka markaan ka raystay ilmihii markay soo koreen kolba heer baan la soo maray maalintay yaraayeen oo beejada lahaa xataa gudniinka anaa guday wallaahi oo billaahi oo talaa waxaan xasuustaa kaga sheekaynaya 2 wiil oo dhalay anoo London degan East London ayaan magaaladan hadda aan deganahay dhakhtar muslim oo caruurta guda ayaan u keenay asaan guda gabarha haddiiba la gudaayo gabdhahana ma takaalama taabtaba laakiin wiil oo habartiis iyo xambaarato waxa la raacay markii iigu horeysan raacay tareenka dheereeya oo hadda joogsaday hadda waa joogsada tareenkaas Virgin Train la dhigi jiray awada kale walaalkay Ciise Maxamuud Samow ilaahay khayr ha siiyo qaraxiiso boo ku dhinto walaalkay nin wax barto mutacallima u ahay anigana kabiirkayga u ahay walaalkay Ciise Maxamuud Samow gurigiisa ku soo daga oo taqtarka iyo balamiya oo ila geey oo lacagta gudniinkan bixi wiilashiisi baajadi laga gooyay xataa ana ka masuulahay iska badaa badarkii la sii hayay balkaasow adigu example leen ku aan ku soo bixina example lee waa kaasow adigu seed janno ku rabtaa anigana naar ila jecesha seed janno ku rabtaa anigana naar ila jecesha وعاب الله بابا أدوكنا جنة إن الجليس كستوم هذا يا كورهاجا يا كبهاجا عاد الجلي إنه نارت الجليس أنا جنة الجلايا بعد كباحة اللي يصيب ما سببت واحد إسكو إله أن هذا إله جار مليه دين ترى هل دين واحد دين تهل دين واحد يا دين تهل دين واحد إلهي نوار رمي كنت بدي سوار رمي ملائكتي سوار رمي نحي تشرت يا قير كوار رمي ما أنت يوم القيامة نوار رمي واللحدة تيرو إسلام لحدة إيمان شنطة تيرو إسلام أنت نوار رمي صلاة نوار تكذب وقت كذي وإلالي المهنة وكوكر شيء حبارها كوكر دعي وكوكر شيء المهنة أساعد أدو قندودة أتسو أكروك سو مجوين هذا أنا كنا إششات إيجوبي إششات ساس إيجوبي وحوي مقورت because ولي وحوي نبكي أدي جارسيس problem كي أدي بس أيان كنولها ممكن نولش هذا إيقوري نولش هذا إيقوري loser بدنته نمو loser بته نين كستو الميس ضيعة وربا كم واجبة بقى وأنا كفر أحسنها وكفر أحسنها شرعي عصب أو بشي هرا دمات كده لصو صار ماتش قراية نينك الميس ضيعة
ee qolada ilmaha gabadha ilmaha oo ku dayacay ay ku dacweyso qolada ilmaha ogeysiiso ee asoo shaqaysta lacag dhiibi waaye inaanu waddanka ka bixi karin oo baasaboorka britishka la kansalaayo aad iyo aada u soo dhaweynaa kelmadaas wax badanna waa u ololeeyay intaasoo MBna waa u tagay laakiin aniga tayda kayskayda waa it is too late because ilmahayga waa qaangaareen jeclaa lahaaya in kayskayga inta ilmahaygu aanay qaangaarin sharcigaas u soo bixi lahaaya laakiin hadda aniga waa bixi wal gabdho walaalahiyaa ka faa'iidaysa ogaada sharcigaasaa jiro UK haddaad degan tahay you should report his ass to the children's services codso ilmaha in oo hadduu ma shaqeeyo codso ilmaha in uu kugu siiya biil hadduu shaqeeyo maaha dembi naarna ku geli maysid waa waajib ila laga dhilaystay oo lacag la siiyey oo one night stand ah oo habeenkaas laga dhilaystay mateed naag la qabay oo ilmo laga dhalaa tahay gabar kastoo UK ku nool oo nin ilmo ku dayacay codso habartiis dhakada ka wase baasaboorkana laga kansala Soomaaliya aada xildhibaanna naqa wasiirana naqa damba ma jirto hadduu aado baasaboorka gadaal laga kansala dibta baasaboorka u shaqeeya miisa loo joogaa taman kale ha ku abuse xagga hadduu rab waa sharci aad iyo aad xaq eegaya waay xaqow eegaya sharci ilmahana xaqooda la siinaya anaga day dhibsan xeega qaadaya ishood igu xajiintaa xoor ku maali maysida hay xayuubsanay joog xasil aayarkaas horaan horta xila gubo maqan wala sidii ma xooxdaa dumarkii ma xidata xiisaha jacaylka iyo ma barata xanaanada casharadii oo ma xafidan nidaamkii dumar lagu xushmeyn jiray haddaad xoola leedahay xubayraad ka joogtaa tii xila ku muddo lugooyada xayuuftee ishood igu xajiintaa xoor ku maali maysida hay xayuubsanay joog xasil aayarkaa socod horta xila gubow maqal wali sidii ma xooxdaa dumarkii ma xidataa xiisaha jacaylkiiyo ma baratay xanaanada casharadii xariiqnaa ma xafiday nidaamkii dumar lagu xushmayn jiray suugaantaydaas anaa iskale waa laba bayd hal bayd lan sheegaa inta xila gubah ay ku socotaa gabdhaha single motherska oo waaweyn oo guurka u baahan macsiya samaysiina waxaa ogaateen inaad guursatin ceeb ma aha inaad guursatiin ceeb maaha yaa guurka ceeb lagaaga dhigay nin yar bay guursatay hadday guursatay waxay guursan lahayd mid bahalku ka fadhiistaa ma guursanayso mid bahalku ka fadhiista oo caloosha ka horeyso oo sokor iyo dhiikar iyo cholesterol qaba oo weligii jim aadin oo weligii maxaytan aan jirka dhisan ma guursanayso weliga ayaan guur lagaaga dhigan ceeb kuwa dhinacyada xiiranna ayagaa dumarka waaweyn qadyaan lagaga taagan yahay oo aan ku daynayn gabar walba oo weyn waa garanaysaa waxaan ka hadlayo inay saxta war waa kala weynnahe caruurtaydii oo kalaa tahee meel fariisa haddaa tiraa wuxuu ku leeyahay rasuulka qadeejoo guursada calayhi salaatu wasalaam rasuulku qadeejoo guursaday oo kuusoo rasuulku waa run qadeejo waa guursaday laakiin aday rasuulkii maa tahay asoo rasuulkii maa hadha waa is guursateen habartiisa ugu soo horraysa hadday ogaado ogayay baaya habar duqaha u guursaday gabirta hadda 35 jirta xataa habar duqaha u guursaday oo jaxin waxaas ka aragtaan guursada kana tallaabsada toofaarada way guur ceeb u yahay gabar muslima haddaa taa waryaa waxaa ceeb ama caasida ayadana naftirkeeda hadday si qalada kaaga dhacda lagaama duubi kara waxba usugana macsilow kale waa kalagaa kaliya macsilow mateed labadiinaba waa macsilaysatay laakiin ka fogaada macaasida guur laakiin guur yaan weligaa ayaan lagu gahan jabin guur kuwa yaryarna hooyooyinka dhalay ha ogaadeen khadyaan baa laga tuugaa kuwooda yaryar khadyaan baa laga taagan hadday gabadhu tiraa waar waa weyna aad baan kaaga weynaa meel fariiso wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ba qadiijo guursaday oo 40 sano jirto kullee takala waxaa cajiiba nin 30 sano jiro inuu yar yahay isu qaba
soddon sano haddaad jirto labada dhinac haddaad xiirxiirto inaad eertaa maa macneeda you see konton shanaan jiraa aniga haddaad qimaarka iyo xayuub iska siiya alla iguma qabteen oon inta koofeer taga labada dhinac xiira oon jeego bahal jeegaaha khatar ah soo jarto oo sarwaalna hadda weyd luusaan sameeyo culaysku waga dhacee sarwaal jiinisana bahuul iyo meelaha online-ka oo hadda dukaan bafurre ka soo gato ee isku jiido ee shaata yaree dhajisana xirto ha 25 jir baan noqonayaa indhaha isku haysaa 35 sano isugu jiray 40 u dhow oo ya labada dhinac soo xira wiilka yar abkay waa abuulan suufi xagee wiil yar joogaa war labada dhinac buu soo xiiree amba labada dhinac waa soo xiiri karaa oo bush abbaara waa soo gasho karaa naasaha waa taagi karaa oo lipstick qurux badan inta soo marsado oo dhac isku soo siiyo make upka ugu qaarisan oo sarwaal yar soo xidho oo shaar yar soo xidho oo labada dhinac xiiro wallahi inaana aaminadii maama aaminadii 55 jirkaad wallahi inaana noqonin alla say ugu maqabto yaadayda iyo wajigayga iyo sida ilaahay ii gartay ayaan ku faraxsanahay intaas baa amaan laga gahiri laayahay ee gabdhow dantiina garta 30 jir bisuqiisu geel dabra shuunka timi busiqa kaga yaala geel lagu soo dabri kara waxa iskaga ka dhiga inuu yara wiilka yar no you are very very wrong. He's no more young. He's 30 years fucking old. 30 fucking years old you jira. Mida kale markaad hadasho oo waxaad sheegayso u bari waayaan waxay ku leeyihiin ama fahmi waayaan because gabdho badan oo aqoon lahaa jooga meesha markay ku fahmi waayaan waxaad sheegayso ama waxaad sheegayso u bari oo waalanta weligii waa waalanta ayaa lagugu aamusan jaahil waay waxaad sheegayso u fahmi waay IQ-giisa waa yar yahay aqligiisa ma badna waa ku quuri laayahay qurux waa ku quuri laayahay daawa ku quuri laayahay way aragnimo waa ku quuri laayahay aqoon waa ku quuri laayahay waa waalanta hablaaya waa waalanta hablaaya waa waalanta ka waala waxa waala ninka 30 sano soo jiro soo qaba inuu yar ama 35 ayaa waala ninka raba qof xor ah oo xornimo ku dhalatay sidii soo kaleeto raba inuu afka qabto ayaa waala waxaa waalan ninka ilmihiisa inta dayacay caarkiisa ee calooshiisa kaliya meelaha la wareegaya oo guryaha falaatiska ah ee adigu aad degan tahay ee gabdhaha dariskaaga Soomaalida ka daba wareegaya waxaa waalan ninka xaaskiisa maqaayadaha ku fanishaaya ee kaga sheekaynaya fadhi ku darreeda waxaa waalan ninka gabadha xaaskiisa ah inta oo ka baxo guriga ka soo horjeeda inta galo guriga ka soo horjeeda codkiisa humtiisaba ay ka maqli karto gabadhii oo ka soo tagay xamahaya ilmihiisa hooyadood kaasaan waalan waxaa waalan kana asaga oo depression qaba yaa iyo wax ka sii daran oo laba bacood laba jawaano kaniiniyo wata Soomaaliya inta tagay raba inuu xukun qabto oo haddana inta soo milyan oo Soomaaliya naftooda ku qamaaraya kaasaan waalan waxaa waalan kan asoo halkan loser ku ah ee guul daraystay ya inta baxay oo wadanka tagay raba inuu xukumo oo boorso ibara inta la tagay aqoon ma leh aqli ma leh xikmad ma leh IQ-giisa waa very low wuxuu dadka ku soo kordhaa ma leh xataa experience ma leh because ilmihi adoo kaaga cararayo dee muu korin caruurtiisa xataa war ilmaha sida aabal fiican loogu noqdaa marka Yurub la joogo hadaa tiraa waraysiyan ka qaada xabad kama oga ee boorso ebara in la tagay hadana raba inuu maasuq soo bixiso gabdhihii yar ee wadanka joogay ee hooyooyinka masaakiinta ee suuqyada ku gadaaya yaanyadana oo soo 15 soo fuula raba kaasa waala adiga ma waala I'm sorry waxa soo dhamay kara hooska iga dabiin waa dhaxmoona banaanka inaan gudaha galano kowdaha marka gabadhay xila gubayaasha iska celiya wax ay axsaan abaad leeyahay ma jirto ninka fiican soo dhaweeya ninka fiican ha raacinina kan xun biya raacis ha ka dhigana no ninka fiican kala saara hama sayraane karood hadile
kuwa xunoo tirada badan leh hama sayr ha u dhintaane ninka wanaagsan kaa soo dhajiya ee sheega wanaaggiisa ammaana ninka wanaagsan ha hagranina ninka wanaagsan ammaana ninka wanaagsan caashaqu xir weeye sharaf iyo xil weeye xasad maaha iyo xoog xaqiraadna ma ogolo labadii isxulataa xandhadiisa maashoo xuurtiisa loogo farxad kula xashaashte horta xilo gubow maqal weli sidii ma xuuxdaa dumarkii ma xudataa xiisaha jacaylkiyo ma barata xanaanada casharadii xariiqnaa ma xafiday nidaamkii dumar lagu xurmayn jiro haddaad xoolo leedahay xubayraad ka joogtaa tii xilo ku moodaan lugooyada xayuuftee ishood igu xajiintaa xoor ku maari maysida hay xayuubsanoo joog xasil aayarkaa soco horta xilo gubow maqal weli sidii ma xuuxdaa dumarkii ma xudataa xiisaha jacaylkiyo ma baratay xanaanada casharadii xariiqnaa ma xafiday nidaamkii dumar lagu xurmayn jiro bye bye